al-shabaab oo doonaya in wadahadallo ay la furaan beelaha xabadda ku ridaya iyo beelahaasi oo go'aano isku mid ah qaatay. madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo doonaya in hal arrin oo uu kaga duwan yahay madaxdii horey dalka usoo martay uu ku dhaqaaqo, iyo taliyaha nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka mahad maxamed salaad oo u duulay dalka qatar. xogtii ugu dambeysay muuqaalkan ayaan kuugu soo gudbin doonaa. haddii ay tahay markii ugu horeysay oo muuqaalkan aad ka daawanayso, galwareed bage nagu soo bir ayaan ku leeyahay. like iyo follow dhe muuqaalka la sii wadaag asxaabtaada kale. mar kasta iyo meel kastoo aad joogtana waxaan kaaga mahadcelinayaa had iyo goorba sida muuqaaladeena aad u daawato. ururka al-shabaab waxay wajahayeen toddobaadyadii aynu ka soo gudubnay culays dagaal oo aad u xoogan. dhowr furan oo dagaal ayaana ku furan, iyadoo ay jiraan furmo hor leh oo la qorsheynayo in lagu furo ururka al-shabaab, taasi oo kooxda dad badan looga dilay ilaa iyo iminka marka la eego dagaalada lala galay, kuwo kalena laga qabtay, iyadoo kooxda ay qarka u saaran tahay in markaasi ay weyso deegaano in muddo ah ay maamuleysay. sidoo kale dowladda soomaaliya ayaa dagaal dhowr jiha ah ku wada ururka al-shabaab marka loo eego taageerada dadka deegaanka iyo ciidanka xoogga dalka, la dagaalanka al-shabaab ee xagga internetka iyo midka dhaqaalaha. kooxda al-shabaab ayaa hadda la ogaaday in ay waddo qorshe ay ku doonayso wadahadal inay kula furto beelaha awoodda badan ee dagaalada kula jira, sida beelaha mudulood oo ay ergo u soo dirsadeen islamarkaana ay ka codsadeen in xaalka ay qaboojiyaan oo ay ogol yihiin wadahadal si wax walba miiska wadahadalka loogu dhammeeyo. hase haatee waxgaradka mudulood ilo aad uga agdhow waxay sheegeen inay iska diideen wax wadahadal ah inay la furaan kooxdaasi oo dhibaatooyin badan ka geystay dhulka mudulood, islamarkaana dad badan oo haldoor ahaa iyo shacabba ka laayay. sidaa daraaddeedna waxay yidhaahdeen waa inoo dagaal innaga iyo al-shabaab. al-shabaab ayaa sidoo kale isku dayaya inay ergo u diraan beelaha kale ee dagaalka kula jira si miiska wadahadalka ay ula fadhiistaan islamarkaana ay isla gorfeeyaan waxyaabaha la ysku hayo. al-shabaab ayaa beelaha qaar ka dalbanaya haddii wadahadal ay la furaan inay uga tegi doonaan aagga beelaha si ay degaan, islamarkaana wax dhibaato ah mar dambe aysan halkaasi ka geysan doonin. dowladda federaalk soomaaliya, gaar ahaan madaxweynaha jamhuuriyadda, waxa uu sheegay maalmo ka hor qof kastoo wadahadal la fura al-shabaab, qof kastoo u tago cadaalad u doonta, qof kastoo macaamiil la noqda inuu la mid yahay ururka al-shabaab, tallaabana laga qaadi doono. taasina waxay keentay in xitaa al-shabaab la yidhaahdo odayaasha qaar taleefanada kama qabtaan. dhinaca kale, madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa lagu wadaa maalmahana soo aadan inuu cadalo saldhigto, islamarkaana halkaasi uu ka hogaamiyo howlgalka ka dhanka ah al-shabaab ee la doonayo shabeellaha dhexe inuu ka bilowdo. al-shabaab ayaa dhufaysyo ka diyaarsanaya deegaano muhiim ah sida aadan yabaal, islamarkaana waxaa wararku ay tilmaamayaan in al-shabaab haddii dagaal loola galo ay adag tahay inaysa sii difaacaan. ciidamada xoogga dalka iyo kuwa macwiisleyda waxaa taageero xooggan u muujinaya diyaaradaha dagaalka ee ciidana aan wadin ee maraykanka iyo turkiga, taasi oo wax badan ka caawinaysa in aagag hor leh ay qabsadaan. dhinaca kale, taliyaha nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka mahad maxamed salaad ayaa lagu waramayaa in uu u duulay dhinaca dalka qatar. diyaarad gaar ah oo dowladdaasi ay u soo dirtay ayaana wararku ay tilmaamayaan in ay ka qaaday garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho. safarka taliyaha nisa ma ahayn mid horey looga sii warqabay, hase ahaatee waxaa la isweydiinayaa xilligan maxaa ku soo beegay safarka mahad maxamed salaad ee dooxa. dadka qaar ayaa welwel ka muujinaya inay soo ifbaxdo hadalhayntii maalmihii aynu ka soo gudubnay aadka u qabsatay baraha bulshada oo mas-uuliyiinta qaar xitaa ay hadal hayeen, oo ah in dowladda qatar ay doonayso inay fashiliso gulufka ka dhanka ururka al-shabaab, islamarkaana ay isku daydo in wadahadal ay u furto dowladda federaalk soomaaliya iyo ururka al-shabaab. mahad maxamed salaad tan iyo markii xafiiska uu yimid waxaa kordhay beegsiga ururka al-shabaab. howlgallada ayaa sii kordhay, waxaana xarun u ahayd toddobaadyadii aynu ka soo gudubnay oo uu ku shaqaynayay gudaha magaalada balcad. guud ahaan waa naga intaa tabinteena xogihii ugu dambeeyey ee siyaasadda soomaaliya, waxaana aad ka daawanayseen galwareed bage. muuqaalkan haddii aad dhammaysatay la sii wadaag asxaabtaada kale. mahadsanid.